السلام عليكم كسو دوادا برامجka horyaalka ciyaaraha adduunka qodobada barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah xidiga Barcelona oo timaha beertay kadib markii talo uu ka helay Cristiano Ronaldo. Liverpool oo si lama filaan ah ugu dhaqaaqaysa xidiga hore ugu soo ciyaaray horyaalka English Premier League. Haddaba xidigaasi ka waaye barnaamijka ayaad ku daawan doontaan. Robert Lewandowski oo qabtay shaqo uusan qaban Lionel Messi saddexdiisii kulan ee ugu horeeyay ee Barcelona. Wakiilka Cristiano Ronaldo oo markale xidigan u soo bandhigay koox ka ciyaarta Premier League. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka. Fadlan haddaad ku cusub tahay like inoo saar, subscribe na share garaysi barnaamijkeena asxaab badan u gaaro. Mahadsanidina. xidiga Barcelona ayaa timaha beertay kadib markii uu talo ka helay Cristiano Ronaldo. Tima beerashada iyadoo laga cararayo bidaarta ayaa waxa dunida caanka ku noqotay sanadihii ugu dambeeyay, waxaana isbedelkaasi mararka qaar lagu arkaa qaar kamid ah xidigaha kubadda cagta. waxaa kamid ah xidiga taladaasi qaatay ee timihiisa dib u haweenta ku sameeyay qadka dhexe ee kooxda Barcelona, Pjanic, kaasi oo muddo ama ku maqnaa kooxda Besiktas ee caasimada Turkiga. Pjanic ayaa markii uu tagay Turkiga kaliya helina waqti ciyaareed badan, balse sidoo kale helay waqti naftiisa kaga shaqeeyo oo dib isugu qurxiyo. Pjanic ayaa ka faa'iideystay muddada uu Turkiga joogay. Tima beerashada dalkaasi ayaa sanadii ugu dambeeyay caan ku noqday beerista timaha. Qadka dhexe ee Barcelona ayaa tinta ka beertay goob uu leeyahay weeraryahanka Manchester United ahna kabtanka Portugal ee Cristiano Ronaldo. Pjanic oo ka warmayay sheekada iyo sida uu Ronaldo ula taliyay ayaa yiri aad ayaan ugu faraxsanahay in aan halkan joogo. waxaana goobtan caafimaad soo booqday 2 bilood ka hor kadib aan la hadlay Cristiano Ronaldo, kaasi oo igu qanciyay in aan yimaado oo aan kooxdan cajiibka ah la shaqeeyo. Liverpool ayaa si lama filaan ah ugu dhaqaaqaysa xidiga hore uga soo ciyaaray horyaalka English Premier League. Kooxda Liverpool ayaa isha ku haysa inay si lama filaan ah ula wareegto xidiga qadka dhexe ee kooxda Sheffield United Sunday ka hor maalinta Khamiista ugu dambeysa suuqa kaliibsiga ciyaartoyda. kuba sameeyahan ayaa soo jiitay dareenka tababaraha Reds ee Jurgen Klopp, waxaana laga yaabaa in uu xal u noqdo dhibaatada dhaawac ee qadka dhexe kooxda. kooxda Sheffield United ayaa xidigan ka soo bixisay lacag gaaraysa 22 milyan oo euro sanadkii 2020, waxaana uu kamid ahaa xidigaha ugu muhiimsan kooxda. kooxda Sheffield United ayaa aad u qiimeysa xidiga 24 sano jirka, waxayna ku iibinayaan lacag gaaraysa 35 milyan oo euro sida laga soo xigtay Yorkshire Post. Sheffield United ayaa doonaysa inay sii haysto xidigan si uu ugu caawiyo ku soo laabashada Premier League, laakiin waxay diyaar u yihiin in ay iibiyaan haddii Reds bixiso lacagta ay ku doonayso kooxdiisa. Klopp ayaa xidigan u doonaya in uu ku xalliyo dhibaatada dhaawac ee kooxdiisa ka hor intuusan xirmin suuqa kaliibsiga ciyaartoyda. Robert Lewandowski oo qabtay shaqo uusan qaban Lionel Messi saddexdiisii kulan ee ugu horeysay ee Barcelona. xidiga Robert Lewandowski ayaa durba xidig muhiim ah isaga dhigaya kooxda Barcelona kadib markii qaab ciyaareed fiican uu ku soo bandhigay kulankii Valladolid ee horyaalka liigaha dalka Spain. xidiga Robert Lewandowski ayaa 2 gool dhaliyay kulankii kooxdiisa guusha weyn ay ka gaartay kooxda Valladolid kulan ka tirsanaa horyaalka dalkaasi.
Robert Lewandowski ayaa goolkiisa kooxda Barcelona kor u qaaday 4 gool saddexdii kulan ee uu ciyaaray horyaalkaasi. Weeraryahanka reer Poland ee Robert Lewandowski ayaa noqday xidigii ugu horeeyay ee dhaliyay 4 gool saddexdiisii kulan ee ugu horeeya horyaalka La Liga tan ilaa weeraryahankii Radamel Falcao oo sidaas sameeyay 2011. sidoo kale Robert Lewandowski ayaa noqday xidigii ugu horeeyay ee sidaas sameeya kooxda Barcelona qarniga 21aad isagoo ka fiican xidiga badan oo ka mid yahay xidiga kooxdaasi hore u soo ciyaaray ee Lionel Messi. kooxda Chelsea ayaa heshay fursad cusub oo kale oo kula saxiixan karto xidiga Manchester United Cristiano Ronaldo kadib markii wakiilka xidiga Blues mar kale u soo bandhigay saxiixa xidiga 37 sano jirka. Ronaldo ayaa aad u doonaya inuu isaga tago Manchester United suuqan kaliibsiga xagaagan si uu ugu biiro koox ka ciyaaraysa tartanka Champions League. si walba haatee Ronaldo ayaa ilaa haatan ku dhibaatoonaya inuu koox kale helo iyadoo ay kooxo badan ay iska diideen adeega xidigani. sida laga soo xigtay wargeyska Independence, wakiilka Cristiano Ronaldo Jorge Mendes ayaa mar kale la xiriiray Chelsea si uu u qanciyo adeega xidigani. isla wargeyska ayaa sheegaya in Mendes uu sheegay maamulka Blues in Cristiano Ronaldo uu diyaar u yahay in uu sii joogo Premier League. Ronaldo ayaa keedka ku bilowday 3 ka mid ah 4 kulan ay ciyaartay Manchester United ilaa haatan xilli ciyaareedkan Premier League. Pierre-Emerick Aubameyang oo gurigiisa Barcelona lagu dhex garaacay lagana dhacay hantidii uu haystay. 4 nin oo burcad hubeysan ayaa u dhacay guriga Pierre-Emerick Aubameyang ee ku yaala magaalada Barcelona oo laacibkani ku sugnaa iyaga oo ku dhex garaacay gurigiisa isla markaana ka dhacay wixii hanti ee uu haystay xidigani. Pierre-Emerick Aubameyang oo aan deganayna mustaqbalkiisa Barcelona oo la xiriirinayo inuu dib ugu laaban doono horyaalka Premier League ayaa waxaa gurigiisa ku yaala xaafada ku taala magaalada Barcelona uu soo dhacday 4 nin oo hubeysan oo ka soo booday beerta dhawarka dambe ee guriga ku taalaya. 33 sano jirkan ayaa la sheegayaa in lala dhacay bir isla markaana hanjabaad xun lagula kacay sida ay booliska u sheegeen wargeysyada ka soo baxa dalkaasi. tuugadan ayaa sidoo kale qashqashaaday xaaska Pierre-Emerick Aubameyang oo lagu magacaabo Alicia waxaana la xaqiijiyay inay siteen hub oo ugu hanjabeen lamaanahan inay toogan doonaan. hantida guriga taale oo qayb ay ka hayeen dahab tiro badan iyo baawur noociisu uu yahay Audi A3 ayay qaateen burcada oo guriga ka baxsaday iyagoo aan cidna wargelina. booliska waqtigaasi maadaama Aubameyang iyo xaaskiisa ay ku jireen xaalad afduub oo kale. guud ahaan waa naga inta barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka. fadlan haddaad ku cusubtahay like noo saar, subscribe, share gareey si barnaamijkana asxaab badan u gaaro.